bismillahi raxmaan raxiim jabtarkii electromagnetic induction-ka buugaagta muqararka physics-ka form 4 ee dugsiga sare ee gobolka Banaadir ayaan qaadanaynaa. Electromagnetic induction-ka ayaan ku dhex jirnaa jabtarka ah saaqsin bir labdanabeed. lesson 1 ayaan soo qaadanay. waxaan bilaabeynaa wax loo yaqaan lesson 2 ayaa halkan ku bilaabeynaa. lesson 2 gan waxaan ku baran doonaa insha Allah wax loo yaqaan Faraday's law, xeerka ninka loo yaqaan Faraday oo ah induction saaqsinta. waa xeerka Faraday waa nin magaciisa waa Michael Faraday. taariikhdiisa waan ka soo hadalnay xilliga uu dhashtay iyo xilliga uu geeriyooday iyo xilliga uu soo saaray electromagnetic induction-ka. marka Faraday's law of induction ayaan baranaynaa. Faraday's law of induction lesson-ka waxaan ku baran doonaa lesson 2 chapter electromagnetic induction waxaan ku baran doonaa Faraday's law of induction, xeerka Faraday. by the end of the lesson casharka markuu dhamaado ardayga wuxuu awoodi doonaa number 2 state inuu sheego maxaa la Faraday's law of induction, waa maxay xeerka Faraday ee saaqsinta. lambar 2 ardayga waxaa laga rabaa inuu sheego demonstrate, inuu sheego real life application, waxyaabaha nolosheena caadiga ah ee dhabta ee loo isticmaalo, waxyaabaha ku samaysan Faraday's law of induction-ka. 3 ardayga waxaa laga rabaa solve inuu xaliyo numerical problems, tusaalooyinka ama masalooyinka involving la xiriira Faraday's law of induction. sidaas ayaan ka leenahay. lambar 2 maxaa waaye ardayga waa inuu yaqaanaa Faraday's law of induction, maxaa la inuu barto. lambar 2 ardayga waxaa laga rabaa inuu sheego real life applications, isticmaalka ama applicationada waxyaabaha aaladaha ama deviceska ku samaysan Faraday's law of induction saaqsinta ee xeerka Faraday. iyo lambar 3 waa inuu xaliyo problems la xiriira Faraday's law. waa definition maxaa la marka Faraday's law. Faraday's law definition waa kana marka waxaan dhahaynaa waa the average waa celceliska of EMF electromotive force-ga xooga danabwadaha induced uu ku soo saarmo in a conducting gudbiyaha oo coil-ka ama hasaawada ama duubta ama conductor-ka fiilada ee luubyada is equal to waxay kula mid tahay the negative and opposite-ka of the rate ee dhaqsiga at which kaasoo the magnetic flux butaaca ama burqaadka ama isbedelka ku yimaada magnetka birlabta through taasoo dhex maraysa the coil gudbiyaha is changing taasoo isku bedelayso with time. intaas marka waa maxay Faraday's law of induction. haddii lagu dhaho sheeg what is Faraday's law of induction ama state Faraday's law of induction maxaa waaye intaas ayaad ku definition garaynaysaa. marka intaas maxay kugu taagan tahay? intaas micnaheedu waa qaacidadan. qaacidadan marka maxaa waaye waa Faraday's law. marka warkana waa kana haddii lagu dhaho waadis ahaan u qor, waa kana haddii lagu dhaho formula ahaan u qorna qaabkaas aad u qoraysaa. marka maxuu ku dhahay Faraday's law wuxuu ku dhahay waa the average EMF induced, EMF ka soo baxo xooga danabwadaha in a conducting of coil of n loops waxay kula mid tahay is equal to the negative-ka ama opposite-ka ama negative-ka loopyeska taasoo rate dhaqsiga uu isku bedelo rate-ka dhaqsiga at which kaasoo magnetic flux butaaca birlabdanabeedka butaaca birlabtu isku bedelayso in changing taasoo isbedelayso with time. marka waa kan haddii qaacidahan u qor lagu dhaho waxaa qoraysaa Faraday's law qaacidadiisa waa kana maxaa waaye Faraday's law EMF waxaa lagu helaa number of loops ama number of turns-ka oo lagu dhuftay isbedel ku yimaada magnetic flux-ka waa soo qaadan waan ka soo hadalnay qaacidooyinka lagu helo magnetic flux waxaa lagu helaa magnetic field oo lagu dhuftay area ayaa lagu helaa oo loo qeybshay time-ka ayaan ku meesha. marka magnetic flux waxaan ku bedelin karnaa biyo lagu dhuftay a ayaan ku bedelin karnaa ama waxaan dhihi karnaa final oo magnetic field oo laga jaray initial magnetic field ama waxa uu qaybinaynaa change isbedelka waqtiga labadooda ee isku bedelaan ama magnetic flux-ka. intaas maxaa marka waa magnetic Faraday's law definition-kiisa waa ka maxaa leedahay Faraday's law. xeerka Faraday wuxuu soo saaray waa celceliska electromagnetic force-ga uu ku soo saarmo conducting gudbiyaha coil-ka waxay la mid tahay negative-ka uu rate-ka dhaqsiga uu isku bedelo magnetic flux butaaca birlabta through the coil dhexdiisa is changing taasoo isku bedelayso with time. ama qaacidadaas ayaad automatically ayaad qaadanaysaa. Faraday's law of induction haddana waa kana isagoo ku kala dhigay halkan ayuu sawirkan ayuu kugu muujiyay calaamadaas maxay kugu taagantaa waa induced electromotive force xooga danabwadaha soo baxaya inta waxay u taagan tahay number of loops inta duubood ay ka samaysan tahay wire-ka magnetic isbedelka change ama delta magnetic delta phi oo loo qeybshay delta time ama t-dan waxay u taagan tahay
waa rate-ka dhaqsiga uu isku bedelo oo u taagan time-ka falakiska butaaca birlabeed. marka calaamada negative maxay muujinaysaa? calaamada negative taas waxaynu muujinaysaa main sign wuxuu muujinayaa uu ku dhahay waa lens slow, waa xeerka lens xeerkiisana lesson ku xiga ayaan ka hadli doonaa insha Allah. marka calaamada wuxuu ku muujinaysaa lens slow micnaheedu maxaa waaye? lens slow waa kana marka lens slow xeerkiisa wuxuu ku dhahay lens slow waa indicates calaamada negative waxay muujinaysaa marka equation-ka waa lens slow maxaa la wadaa marka? lens xeerkiisa waxa waaye indicates wuxuu muujinayaa that the direction-ka jihada of the induced electromotive force xooga danabwadaha soo saarmay current-ga soo baxay is such that opposite wuxuu cagsi ku yahay the change isbedelka ku dhacaya falakiska. calaashaan current-ga soo baxay ayaa waxaa ka daba imaanaya isla current kale ayaa ka imaanaya. marka lens slow-ga calaamadaas ayaa inoo muujinaysa. lesson-kan ayaan ku qaadan doonaa insha Allah. Faraday's law of induction weli sharxaad ayaan ku wadnaa. waxaa la marka Faraday ninka live explains wuxuu sharxay that whenever mar walba a voltage uu current soo baxan voltage uu soo baxo is induced la soo saaro ee conductor gudbiyaha whenever mar walba it cuts uu jaro magnetic field lines oran waa ka soo hadalnay waa inay is jiraan labada conductor iyo magnet waa inay is jiraan magnetic field lines si dab loo helo ayuu Faraday law uu sharxay. bad laakiin Faraday's law kuma jiro xeerkiisa conductor ka duu noqdo mid parallel barbara conductor iyo magnetic field-ga ay coil-ka ay noqdaan kuwa parallel dibka ma dhashto ama duu rest uu noqdo oo ama labadooda is dul saarayeen. marka waxaa la rabaa inuu conductor-ka iyo magnetic field-ga magnet-ka inuu midkood uu motion uu sameeyo. lesson-ka ayaan kaga soo hadalnay. example tusaalaan qaadanayna marka Faraday's law ayaan tusaale ka bixinaynaa. waxaa la marka consider waxaad tixgelisaa flat square waxyaabo square ah oo isku duub ah flatkiisa coil oo duub ah ayaa wuxuu yahay number of turns-kiisa waa 5 turns waa 5 duubood. the coil duubka ayaa waa 0.50 meter am 0.5 meter waa eber dhibic 50 meter on each side dhinac kasta. area-da bedelkeeda waxaa lagu siiyay labada dhinac micnaheedu maxaa marka waxaa sameynaynaa area-da ayada ayaan ka dul sameynaynaa and has a magnitude and a magnetic field wuxuuna leeyahay waxa loo yaqaan birlabeed ayuu leeyahay oo ah 0.5 tesla baasinkaasoo gudbaya through it dhexdeeda. the plane saxanka of the coil ee duubta ayaa wuxuu perpendicular ku yahay magnetic field-ga bedka birlabeed. the field bedka ayaa points out wuxuu tilmaamayaa of the pitch qaab pitch ayaa use isticmaal oo Faraday's law xeerka Faraday isticmaal to calculate saa usoo xisaabiso su-aasha laga rabo waxaa waaye induced EMF-ka waxaan soo saaraynaa current-ga soo baxay if the waxa loo yaqaan EMF soo baxay voltage-ka if the magnetic field haddii bedka birlabeed uu isku increased uniformly from uu isku kordhiyo marka hore wuxuu ahaa final case wuxuu ahaa magnetic field-ga eber dhibic 5 tesla to wuxuu noqday 1 tesla aminta uu qaatane waa 10 second. marka maxaa la siiyay number of turns oo ama number of loops oo 5 waxaan la siiyay area-da oo hal dhinac la siiyay asagana isku wargareynayna sa ku helno iyo magnetic field-ga marka ugu horeeyo oo ahaa 0.5. waxaa kale oo nala dir su-aasha laga rabo waxaa waaye waxaan soo saarnay Faraday's law ay rabnaa inaan soo saarno oo induced EMF-ka magnetic field-gana janji ku dhacay magnetic falakiska waa eber dhibic 5 ilaa iyo 1 tesla. waa kana marka maxaa qaacidada waxaan isticmaalaynaa waxa loo yaqaan electromotive force oo EMF-ka waxaan isticmaalaynaa Faraday's law muxuu ahay electromotive force waxaa lagu helaa number of loops-ka waxaan ku dhufanaynaa change of flux isbedel ku yimaado butaaca loo yaqaan isbedelka magnetka oo loo qeybshay time-ka ama waxaa ku heli karnaa ama waxaa kaloo ku heli karnaa sidoo kale number of loops-ka macnaha magnetic fluxka kan oo qaacidadan kan oo kala qaado magnetic fluxka wuxuu kala qaaday final magnetic flux oo laga jaray initial maadaama change uu yahay marka waxaan kala qaadaynaa final iyo initial kii hore iyo midka dambe waxaan qaybanaynaa time-ka ama uu sii furfuray qaacidada wuxuu ku dhahay EMF waxaan ku helaynaa minus number of loops oo lagu dhuftay final-ka oo magnetic field-ga oo finalka magnetic field-ga oo lagu dhuftay area-dii waxaan ka jaraynaa initial magnetic field oo lagu dhuftay area-da waxaan qaybanaynaa time-ka isku bedelay
marka maxaa haysanaa waxaan haysanaa kow qaacidada guud aan isticmaalayna marka waa mostly intooda waa isticmaali kartaa qaacidadan waa isticmaali karnaa laakiin marka ugu hore waxaan soo raadinaynaa magnetic fluxkan soo saaraynaa labada magnetic fieldiga area soo dhufanaynaa haddana waa soo kala jaraynaa marka intaan process dheer mar leeyahan book waa soo daray wuxuu ku dhahay qaacidada guud oo ku sii waxa waaye waa qaacidada electromotive force laakiin maadaama meesha uu yahay change of magnetic flux u dhacay wuxuu isticmaal number of turns-ka waxaa ku dhufsanaysaa marka area lagu dhufanayaa marka magnetic fieldigana isbedel ku yimaado waa kana waa final magnetic field oo laga jaray initial magnetic field loo qaybshay time ayaad isticmaalaysaa waayo number of turns-ka wuxuu ahaa 5 waa ka soo qaadanaysaa bracket aad furanaysaa area lagu sii waa 0.5 oo labada dhinac one side marka square ah qoraay area waxaan ku dhufanaynaa marka final magnetic field final wuxuu ahaa 1 ayuu noqday laga jaray marka hore wuxuu ahaa 0.5 waxaan qaybanaynaa waqtiga oo ah time-kii oo 10 second marka kana square gareeno kan lagu dhuftay oo labada lagu sii dhuft maray 0.5 kani loo qaybsteen waxa soo baxaysa EMF jawaabtu waxa noo soo baxayso electromotive force-ga Faraday's law waxa soo baxay eber 25 oo volt ayaa inoo soo baxay marka guud ahaan waa kana marka waxa sameey kartaa adoo qaacidadan isticmaal waxa kale oo sameey kartaa marka ugu hore magnetic flux ka soo raad magnetic flux waxa lagu helaa magnetic field oo lagu dhuftay area laba magnetic field ay haystaa marka marna kan ku soo dhufo markoowaad magnetic flux ku soo raadi haddana mar kale isla magnetic flux-ka waxa soo raadinaysaa haddana wanka soo raadinaysaa kadib marka automatically qaacidadii wixii ku soo bax magnetic flux labadoo soo kala jar halkaan aad ku bedelin kartaa meeshaan aad ku bedelaysaa ama hadii kale qaacidada buug oo isticmaalay ayaad ku dul isticmaalaysaa Faraday's law waa marka waxaa leenahay marka applications isticmaalka la isticmaalo applicationska waxyaabaha loo isticmaalo oo Faraday's law xeerka waxyaabaha ku sameeysan Faraday's law xeerkiisa waxyaabaha loo isticmaalo maxaa kamid ah the following kuwa soo socda device aaladaha ama qalabyadan soo socda use waxay isticmaalaan Faraday's law ay isticmaalaan in their operation markii ay shaqeynayaan marka waa intaan waxa la marka Faraday's law waxyaabaha applications waxa kamid ah number 2 waxa loo yaqaan induction stoves waxa loo yaqaan oo saxmaha caadiga wax lagu kariyo waxa loo yaqaan induction stoves saaqsin oo saxanka uu ku sameysmay sida bahalaha waxyaabaha lagu dubo oo kale number 2 applications of Faraday's law waxa kamid ah tape layers canjaladaha caadiga ah ee la isticmaali jiray waxa loo yaqaan tape layers ayagana waa Faraday's law meelaha maxaa waaye waa isbedel mar walba waa change on flux waay isbedelka wuxuu macnaha oo ku dhaca butaaca waay ayay ku sameysmaan number 3 waxa kale oo kamid ah waxa loo yaqaan metal detectors biraha wax lagu baaro marka biraha wax lagu baaro waa midkaan waaye kana waxa loo yaqaan metal detectors marka labada waa soo kala hormariyay metal detectors applications of Faraday's law waxa kamid ah transformers waxa loo yaqaan dooriyaha oo qalabkan marna dabka kor u kacayo marna hoos u dhacayo marka intaan afartooda adluuda applications of Faraday's law waxa leedahay waa induction stoves ka kamid ah koow applications of Faraday's law waxa kamid ah induction stoves ka oo karinta loo isticmaalo tape layers canjaladaha metal detectors biraha wax lagu baaro ee ciidamada askarta isticmaalaan oo kale iyo technician-ka farsamooyinka iyo transformer dooriyaha marna dabka uu kor u kacayo step up transformer iyo step down transformer uu dabka uu ku sameynayo marka intaas waa application of Faraday's law halka marka intaan cashig soo gabagabeynay waxaan baranaynaa Faraday's law iyo farqiga u dhaxeeya Lenz's law Faraday xeerkiisa ninka xeerku soo saaray iyo Lenz's law xeerku uu soo saaray marka Faraday's law ninkan Faraday xeerkiisa tilis asaga wuxuu inoo sheegaa change isbedel ku dhaca magnetic field bedka birlabeed isbedel ku dhaca will induce ka soo saaro ee current dabka soo saaro in conductor ee gudbiyaha Faraday's law wuxuu inoo sheegaa isbedel ku yimaada magnetic field-ga Lenz's law wuxuu inoo sheegaa direction-ka jihada of this induced current ee saaqsiinta dabkan soo baxay Faraday's law maxaa waaye wuxuu inoo sheegaa isbedel ku dhaca magnetic field-ga si uu ku soo saaro current dab oo koronto uu ku dhasho waa electromagnetic induction-ka ka soo hadlay Faraday's law Lenz's law wuxuu isticmaalayaa wuxuu inoo sheegaa dabkaasi Faraday's law ka dhashay ayuu wuxuu inoo sheegaa direction-ka uu socdo ayuu inoo sheegaa
marka intaas ku soo gabagabeynayna insha Allah lesson-kii labaad ee chapter-ka electromagnetic induction-ka aan kaga soo hadlaynay Faraday's law. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.